shakhsiyaad ka tirsan ganacsatada Soomaaliyeed deegaanka Jazeera oo deegaan ahaan ay sheegeen inay iyagu leeyihiin inta badan dadkii ka hadlay halkan waxay dowladda Soomaaliya ka codsadeen in arintani wax ka qabato suldaanka guud ee beesha Nuur Xaaji Abuukar Cabdicaziis Xaaji Cali gudoomiyaha deegaanka Jazeera iyo ugaas Axmed Sheekh Abuukar ayaa halkan ka hadlay deegaanka Jazeera oo ay leedahay beelweynta Sheekhaal Jazeera wuxuu ka bilowdaa xalane wuxuu ku eegay ilaa ay dhanaane waxa meeshaas ka sii bilaabanay gandarshe marka dhulkaas waayo dhulka inta badan ay ku saleysan tahay arintan maanta meesha loo fadhiyo waxaana ka jira dhul boob aad u ballaaran oo aan sax ahayn cadaaladna ahayn nin walbana ilaahay meel buu makansiiyey nin walbana meeshii ilaahay makansiiyey waa in lagu ixtiraamaa lagu tixgeliyaa nin walbana meeshii ilaahay makansiiyey waa inuu ku ekaada aniga hadda haddii aan tago Boosaaso ama Hargeysa ama aan tago Gedo ama aan tago Jowhar ma liiga ogolaanayo goofkan aniga iskale dowladda in waxaan dheelay inay il gaar ah ku soo fiiriso Jazeera boobka ka socdo boob aan loo aabayeelna ka socdo annagana kama yeelin waxaan hor istaagi karna waa hor istaagnay wax badan aan hor istaagnay ayaa hadda xayiran waxna wallahi waa hadda waa kulay sida loogu imaan lahay amba lagu dhisan lahay ayaan macna waxaan ugu digaa shirkadaha waaweyn basiibo shirkadaha waaweyn oo dhulka lacagta geliyo oo loo sameesto documentalka falsificationada lagu qaato dhulka annaga deegaankayna waa deegaanka aan sheegano waa deegaanka aan ku dhalanay waa deegaanka aan tirsano dhulalka oo Jazeera waa xadidan yihiin meeshay ka bilaawatay meeshay ku dhawaatay waa la yaqaanaa halaga digtoonaado lacagtaada meel baan ha gelinin shirkadaha waaweyn oo magaca leh magacaada ha ku cayaarin lacagtaada baan cid leeyahay ku bixin ugu dambeyn waxaa shirkan ka soo baxay warmurtiyeed ku aadan qodobadii ugu muhiimsanaa ee ka hadleen waxaana warbaahinta u akhriyay nabadoon Maxamed Wali Nuur dhulka deegaanka Jazeera oo ka bilowda airportka aadan cadde ilaa deegaanka dhanaane wuxuu ilaahay makansiiyey oo iska leh beelweynta Sheekhaal Jazeera sidaas darteedna waa in cid kasta lagu ixtiraamo meeshii uu ilaahay makansiiyey layskuna dayin in la boobo labo waxaan uga digaynaa cid kasta oo ku howlan qabsashada iyo iibsashada dhulka deegaanka Jazeera sida shirkadaha qaarkood bangiyada ganacsatada qabaa'ilada shakhsiyaadka iyo dawladaha caalamka in aysan meel cidla ah ku bixinin lacagtooda oo aysan ka qayb qaadanin boobka dhulka ama deegaanka beelweynta Sheekhaal Jazeera saddex dhul boobka kuma eka deegaanka Jazeera ee wuxuu ka socdaa dhulal badan oo ka mid ah dhulalka beelaha banaadiriga sida gandarshe marka ilaa baraawe haddaba ha laga digtoonaado boobka dhammaan dhulalkaas afar sida la isugu dayaayo boobista dhulka ayaa waxaa jirta in dhanka siyaasadana lagu dulmay reer Jazeera oo xildhibaanada ay ku lahaayeen dawladda dhexe la duudsiiyey iyagoo dawladihii soo maray dalka oo dhan ay ku lahaan jireen xildhibaano shan ugu dambeyntii waxaan halkan baaq iyo codsi uga diraynaa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftagareen gudoomiyaha baarlamaanka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna Maye maxkamadda sare ee dawladda federaalka iyo maxkamadaha caalamiga haddaba dhammaan madaxdaas waxaan ka codsanaynaa in ay wax ka qabtaan cabashadeena ku aadan dhulboobka ka socda deegaanka Sheekhaal Jazeera waa mahadsantihiin wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh